wafdi balaaran oo ka socda xukuumadda Somaliland iyo xisbiga xaakimka talada dalka haya ee kulmiye ayaa waxa ay socdaal ugu boqoleen degmada Balacbane kaasi oo ay ujeedadooduna daarnay ku wacyigelinta qaadashada kaarka codbixinta oo maalintii 8 July si rasmi ah uga bilaabantay gebi ahaanba gobolada Togdheer iyo Maroodijeex. Halkani waa degmada Balacbane oo ka tirsan gobolka Hawd, waxa ay hoos tagtaa gobolka Hawd waxaana qiyaas ahaan u jirtaa caasimada Somaliland ee Hargeysa 50 kilomitir. Intii aanu jidka ku sii jirnay ayaa waxa aanu sii marnay deegaano badan oo ka sokeeya degmada Balacbane. Dadka ayaa waxay ahaayeen kuwo diyaar garow ugu jira sidii ay u qaadan lahaayeen. Halkani waa deegaanka degmada Balacbane waxa soo buux dhaafiyay dadka qaadanaya kaarka codbixinta. Haddaba dadkan ayaa waxa ay diyaar garow ugu jiraan sidii ay u dooran lahaayeen musharaxa ay ku aamini doonaan mustaqbalkooda masiiriga ah. Degmada Balacbane ayaa ah balaaran oo ay hoos yimaadaan tuulooyin aad u fara badan. Wafdigan balaaran oo uu kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Somaliland Professor Cabdi Cali Jaamac ayaa waxa uu kormeer ku sameeyay goobaha kala duwan ee ay ka socoto qaadashada kaarku. Waxa kale oo wafdiga ku wehelinayay barasaab ku-xigeenka gobolka Hawd Mudane Cabdi Xaashi oo isaguna halkaasi gudoomiyaha ku siiyay warbixin intii iyo sidii ay hawluhu u socdeen. barasaab ku-xigeenka gobolka Hawd ayaa ku soo dhaweeyay insha Allah taala. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. halkan waxa weeyaan degmadii Balacbane ee gobolka Hawd maanta waxa weeyaan kaar qaadashadii cid walba kaar ka qaado hadhow toole way adkaan doontaa. waa fursad 3 cisho hadhay laba way tagay 5 cisho haydba intii degmadu ay lahayd. marka dambe waxa la tagi doonaa meel ka fog oo gobolka in meel goob lagu reebo waa suuragal, laakiin maanta waa chance laba cishay naga tagay. chance-ka ayaan la lumin baan leeyahay, waa chance ayaan la lumin. waxaan ku soo dhaweynayaa agaasimaha guud ee waxbarashada iyo tacliinta. bismillahi rahmaani rahiim. runtii maanta waxaan joognaa degmadii Balacbane ee gobolka Hawd. waa maanta waxa shalay bilaabantay kaar qaadashada. waa maalintii labaad durba laba cisho tagay 3 cisho kaliya hadhay. waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka degmada ku nool iyo guud ahaan Somalilandba inay kaarka qaataan oo ay ka faa'iideystaan fursadda. haddii warqadii ka luntay dhibaato ma laha, kaalay xarunta kaalay waxa goobta kaalay magacaaga sheeg iyo telephone numberkaaga kaarkaagii waa lagu helayaa. marka taasina waa fursad kale. halkan waxay dhammaan doontaa bisha 12keeda, bisha 8keeda way bilaabantay, 12keeda dhamaanaysaa soo sama. inta wixii ka dambeeya waxa weeyaan qofka wuxuu dooranayaa balgobole gobolka xarunta gobolka uu dooranaya. marka imikay ku dhowdahay 3 cisho ka soo gaadh 3 cisho ka soo gaadh. haddii مثلا ay ku saamix weydana halka kugu dhawi 3 cisho kadib waxa weeyaan balgobole inaad u doonato kaarkaaga. marka waxaan rajaynaynaa in si fiican aad uga faa'iideysan doontaan fursaddaas. aad bay mahadsan yihiin komishanka qaranka iyo hawlwadeennada halkan jooga iyo ciidamada nabadgelyada iyo dhammaan odayaasha iyo maamulka degmada iyo gobolka intaba. gabagabadii waxaa halkaasi ka warbixiyay xubno kamid ah komishaneerka meesha ka hawlgala. xaruntani waa xaruntii degmada Balacbane ee runtii hawsha komishanka kaar qaadashada haddii aan ka hadlo runtii si fiican bay u socotaa. inkastoo maalintii horeysay aad moodo in dadku aanay si teltel ay u yimaanayeen, laakiin maanta si fiican bay inoogu yimaadeen. waana rajaynaynaa in dadku tiradu intaa ka sii badato si fiican intuu dambaysa ay yimaadaan. midda kaliya teen ku dadaalaya waxa weeyaan 3 cisho oo kaliya ay hadhay maanta marka laga reebo. marka intaa hadhay inay diiwaangelinta kaarka si degdeg ah u soo doontaan insha Allah in rajaynaa. kale wafdigu intii ay madashaasi ku sugnaayeen ayaa waxa ay si balaaran u soo dhaweeyeen gudoomiye ku-xigeenka xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye Mudane Maxamed Kaahin Axmed oo howlaha uu kuurgelida qaadashada kaarka ku marayay gobolka Hawd iyo deegaanada hoos yimaada. Maxamed Kaahin Axmed oo halkaasi hadal dadkii soo dhaweeyay uga jeediyay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa
بسم الله الرحمن الرحيم dadweynaha reer degmada Balle Cabane ee gobolka Hawd السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دقمدة مامورك كلية دقمدة مامورك قبل كهود مسؤولية هير قرينة توقع قدوميها حسبك الكلمية قبل كمرود الشيخ وقاشة وضياشة وحينو ما توقعنا ومعلمتي كارقادة شدة ولو حسبي وما سعنه إنه كده ولو حسبي سمين ما إنه dadweynaha gobolka Maroodijeex iyo dadweynaha gobolka Togdheer oo kaar qaadashadii diiwaangelintiisa ay sabtidii shalayta ay ka bilaabatay waxaynu ku baraarujinaynaa waxaan leenahay qof waliba ha qaato kaarkii codbixinta berrito xilliga doorashadu ay dhacayso qofku wuxuu xaq u leeyahay inuu cidii doonayo doorto laakiin waxa uu noqonayaa qof bilaa xuquuqa haddii aanu kaarka maanta qaadanin baarlamaan ma dooran karo golo degaan ma dooran karo madaxweyne ma dooran karo waa qof isagu lumiyey xuquuqdiisii haweenka dhallinyarada waayeelka iyo odayaasha waxaan leenahay aad ha loo shaqeeyo dadka duruuf kasta oo adeegi ha jirto sii deer baanu hadda soo marnay meelo maxaanku dhahdaye abaaraanu soo marnay iyo markuu abaarana ka soo doognin haddana waxaynu leenahay dad tabar badan baynu nahay ilaahayna waynu la kaashanaynaa galabtana waa kaa raxmaadkeena hayee halla qaata kaarkiisa taa iskuma ogin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu